kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Kenya oo loogu daahfurayay sidii dadka reer Somaliland ee ku nool waddanka Kenya ay wax ula qaybsan lahaayeen qoomiyadaha kala duwan ee ku nool dalka Kenya ayaa ka dhacay madasha shirarka ee Red Cross Meeting Hall ee ku yaala xaafadda Sosi ee magaalada Nairobi. kulankan nuxurkiisu ahaa sidii dadka reer Somaliland ee ku dhashay waddanka Kenya isla markaasina ku dhaqani ay u soo ceshan lahaayeen deegaamadii ay hore u degi jireen ay ka mid ka ahaayeen Bungoma, Kitale, Naivasha iyo Siyelo. degmooyinkaasi oo ay salahaan ku dhaqnaan jireen dadka reer Somaliland ayaa marka la gaadhay xilliyada doorashada ay kaga soo bixi jireen codadka kuraasida baarlamaanka iyo sidoo kale kuraasida dawladaha hoose. kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda Kenya ay soo saartay baaq ku wajahan in dhul hore ay ula wareegtay dawladda Kenya ay dib ugu celiso gacanta dadka shicibka ah isla markaasina ay dadka reer Somaliland ka qaataan saamiga ay ku lahaayeen. ugu horreyntii ayaa waxa ka hadlay chairmanka jaaliyadda reer Somaliland Maxamed Jaamac Madar. gabadhiina kulankan ayaa dhammaan qodobadii halkaasi lagu falanqeynayay jaaliyadda reer Somaliland ee ka soo qayb gashay ay dhammaanba si fiican isula qaateen isla markaasina ku soo gabagaboobay jawi magaalo faysan. Cabdullaahi Cabdi Cali, TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Nairobi.